أولاداس waxaa u yeelatay hantida in la boobiyo guriga in la dhaco waxay in la dhaco alaabta in la boobo laba motor aan lahayn labadii motor waa laga qaatay waxaan ku shaqeystaa waay wax ilmi aan sistaa waay ilaa huuriga aan noqdo dib asaaski waxaan ku bilaabay kulliye shay yarjicu ila asliha doontii aan ku bilaawday in doontaas aan noqdo hadana dib aan noqdo bad oo gal 1982 ilaa 83 motoriyaal iyo huuriyaal aan lahayn ana iska dhaqnaa markii burburka asdacay dhibkaas ii yimid aday sanadooyin badan oo ay dagaalo xiriir ka taagnaayeen magaalada Marka iyo guud ahaan Soomaaliya ayaa dhamaadkii 90-meeyadii waxaa si aad u soo shacbaxay saameynta ay reebeen dagaaladii foosha xumaa dad badan ayaa ku nafwaayay dagaalada waxaana gabaabsi noqday cunnadii waxaa magaalada uga sii daray abaartii xumeyd ee 90-meeyadii ku dhufatay Soomaaliya malaayiin qof ayaa waxa soo wajahay xaalad macluul iyo gaajo halka malaayiin kale ay noqdeen hoy la'aan barakac hoogan ayaana dhacay waxa la yaab noqotay in magaaladii halbuulaha u ahayd ganacsiga iyo wax soo saarka beeraha Soomaaliya sanooyin ka hor hal mar oo qura ay isu bedeshay meel gaajo loogu dhinto oo dhiig badanna uu ku daato isla markaana dad badan ay ka barakacaan guryahooda 92gii ilaa 95kii waxa ku sugnaa magaalada Marka UN-kii markaas dalka Soomaaliya u soo gurmaday UNOSOM ayaa yimid isla markaa yimaadeen waxa dhacday inay shaqay waayaan way dalkii ka shaqay waayaan isla markaas qabaa'il la jira awgeeda ay keeni waayaan gargaarkii ay ummadda Soomaaliyeed ugu tala galeen degmada Marka inay soo gaarsi waayaan ayaa dhacday isla markaa kadib UN-kii uu ka baxay dalka Soomaaliya dhibaatadii way lama kacalaysay kudhawaad 30 sano magaalada Marka waxa ay gacanta ugu jirtay maleeshiya beledyo kala duwan oo ku dagaalamaya gacan ku haynta magaalada waxa sidoo kale dhacday in marar kala duwan ay magaalada gacanta u gashay kooxda Al-Shabaab waxa ay xudun u noqotay dagaalo lagu hoobtay oo soo noqnoqday sanadooyin badan maleeshiya beledyo ayaa kala qaybiyay magaalada iyadoo ay dadka shacabku ku adkaatay inay isaga kala gudbaan magaalada maleeshiyada ayaa waxa ay furimo dagaal ay ka dhex sameysteen magaalada iyadoo mararka qaarna ay jeexeen qadad la isaga kala gudbi waayay waxa ay gabaad ka dhigteen guriyaha iyo saraha dhaadheer dushooda waxaana inta badan dhibaatadu ku dhacday danyarta sida dumarka iyo caruurta markay dagaaladu dhacaan hooyadu caruurteedii ama gurigeedii waxa laga yaabaa aabihii inuu isku cararo ama inuu askari ahaaba markaas uu dagaalamayay uusan guriga uusan warka haynin hooyadii guriga joogtay caruurteedii dhibaato soo gaaraysa sababtoo ah waxaan aragnay hooyo aan caruurteeda aan qaadi karin xataa aan awoodin waxay gaari ku saarato aan meel ay geysan aysan aqoonin marka dhibaatada ugu weyn waxaan leeyahay dumarka ay soo gaartaa waxa soo kufsi waxa laga yaabaa in guriga loogu soo galo hooyadii gabadheeda iyadoo u jeedo si xoog ah loo isticmaalo gabadheeda meesha lagu kufsado xuquuqdeedii ay meesha ay sumcadeedii meesha lagu baabiyo xuquuqdeedii meesha ku weyso waxyaalo fara badan baan nagala soo gudboonaaday amba nagu dhacay aniga kula hadlaya wadano badan oo hadda Kenya kamid aan soo maray